wafdi wasiira oo ka socday Somaliland muddana ku sugnaa dalka Taiwan isla markaasina la kulmay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi sida madaxweynaha iyo sidoo kale xubno ka mid ah golaha wasiirada ee dalkaasi ayaa maanta dib ugu soo noqday caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Mas'uuliyiintan ayaa waxaa magaalada iyo dalka ku soo dhaweeyay xubno wasiira oo horkacaya wasiirka arrimaha gudaha Somaliland. Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Ciise Keed ayaana faahfaahin ka bixiyay ujeedada uu daaranaa safarka ay ku tageen Taiwan, qodobada ay ka soo wada hadleen iyo sidoo kale halka uu marayo xiriirka Somaliland iyo Taiwan. waxaan loo soo dhaweeyay si maqaamkeedu aad u sareeyo oo aan filinay iyo protocol aad u sareeya waxaanu la tagnay halkaasi arrimo doora oo ay ugu horeyso kor u qaadista iyo sii xoojinta iskaashiga labada dal iyo labada dadba. Tiwa aad baan ugu soo guuleysanay waxaan kaloo ka soo faa'iidnay ama uu noo suuro geliyay safarkaasi in aanu runtii ku soo guuleysano dhammaan mashruucyadana halkaa la tagnay qaar socday oo sida caafimaadka oo kale iyo qaar cusub intaba inaanu ku soo guuleysano. haddaan ka hadlo waxaa ka mid ah kalluumaysiga badda iyo xoolaha, waxaa ka mid ah ICT-ga, waxaa ka mid ah caafimaadka, waxaa ka mid ah mining iyo batroolka iyo dhammaan waxyaabaha aynu u baahanay dalkeenu u baahan yahay. sidaad ogtihiin maalintii ugu horreysay madaxweynaha dalka ayaan la kulannay annagoo wasiirro ah oo taasaa ku tusaysa importance-ka ay siinaysa Taiwan xiriirkeena. waxaa ku xigay markaa wasiiradii kale faraha badnaa ee kabineetka, wasiirka arrimaha dibadda oo nin powerful ah iyo wasiiradii kale dhan oo ayaanu la kulannay. markaa runtii guul ayay noogu soo dhammaatay. dhan walba wixii aan meesha la tagnay waxaan oran karaa boqolkiiba 99 ama boqolkiiba 100 waxaanu kusoo dhammaynay guul. meelaha aynaan markii hore gaari kareen markay dadka aad kulantaan personal noqdo, diplomacy waa personal marka la saarko hore ayuu u kacay xiriirkeeni oo sii adkaaday. waxyaabo fara badan oo markii hore jirnay oo ka sii meel dhalinay. marka ugu horeysa madaxweynaha of course Mareykan buu tagayaa haddii Soomaaliya wax alla yaalo waxay yeelayaan madaxweynaha Mareykan tagaya ma jirto. qorshahan waxa laga soo shaqeynaya waxoogaa waa loo diyaarba madaxweynaha la yahay. haba yaraatee wax dhibaato oo halkaa aan ka baqanaynaa propagandaha muqdisho ma jirto waayo dal jiraba dee ma aha. su-aashaada labaad haddaan ka jawaabo, safaaradii waan u yeedhay. waxaan ugu yeedhay in ay dalkan qaadaan messagekiisa oo ka Norway jooga, ka London jooga, ka France jooga inuu hal message qaado, one message oo ummadan ku matali karo marka uu dibadda joogo, inuu kari karo iyagoo isku cod, isku wadna ah, isku afa inay u sharaxi karaan adduunyada waxay yihiin halkay ka socdaan waxay doonayaan.